السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كلانتي وعن وناكسن إذا لهانتين با meel walba waad joogtaan iyo si walba oo aad nula socotaan ba waxaanu idin leenahay halkani waa telefishinka caalamiga Soomaalida ee Itoobiya ee ESTV stuudiyaha xaruntiisa dhexe ee magaalada Jigjiga goorsheegtu waxay ku beegan tahay daawadayaal xilliga aad hadahan oo kale taan uga barateen inaanu hawada idinku soo gudbino guud ahaanba warar wixina soo gaaray qodobada wararkaanu idin hayno kuwooda ugu doorka roonna waxa kamid ah مسؤوليinta maamulka degmada Shilaabo ee gobolka Qoraxay ayaa ku wareejiyay guryihii xoolihii dhulbeereedkii iyo agabkii ay ku noolaan lahaayeen qoysaskii danyarta ahaa ee loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan qorshaha baabaco ee bulshada dib u dejinta loogu sameeyo degmadaasi mashruuca horumarinta bulshada xoolo dhaqatada ah ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka hergeliyay qabalaha qabow ee degmada Raaso ee gobolka Afdheer harabiyo taas oo ay uga faa'iideysanayaan bulshadu kaydsiga biyaha roobka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka dalkeena Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo booqashadiisii ugu horeysay ee uu dalka dibadiisa ugu baxo ku gaaray dalka Djibouti ayaa kulan la qaatay baarlamaanka dalka Djibouti qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaanu daawadayaal xilli tabinteena wareed idinku haynaa anigoo Cabdirasaaq Ibrahim Klaasan haduu eeba idmo waan idin la socodsiin doona وهاجاك داوديال مركله اسكو soo noqod wacan oo wanaagsan haatanna ku soo dhawaada qodobadii warka oo faahfaahsan mas'uuliyiinta maamulka degmada Shilaabo ee gobolka Qoraxay ayaa ku wareejiyay guryihii xoolihii dhulbeereedkii iyo agabkii ay ku noolaan lahaayeen qoysaskii danyarta ahaa ee loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan qorshaha baabaco ee bulshada dib u dejinta loogu sameeyo degmadaasi warbixin murtaasi ku saabsan waxa inoo haya wariye Maxamed Maxamuud qorshaha biyo-baad beer cilmi iyo caafimaad oo kamid ah qorshayaasha waaweyn ee xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kor ugu qaadayso waxna kaga bedelayso nolosha bulshada reer guuraaga ah ee deegaanka Soomaalida Itoobiya isla markaana qorshe faltusmeed u noqonaya bulshada oo lagu fahansiinayo in habkan dhaqashada casriga ah ee xoolaha uu yahay hab ay kaga helayaan xoolahooda cad iyo caano badan hadaba degmada Shilaabo ee gobolka Qoraxay ayaa waxa si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay qorshihii dejinta iyo dhaqashada casriga ah ee xoolaha ay loo soo gaabiyo baabaca oo bulshada tiradoodu dhan tahay 42 qoys loogu wareejiyay guryihii ay degi lahaayeen xoolihii ay habka casriga ah u dhaqan lahaayeen dhulbeereedkii oo beeran iyo dhammaan agabyadii iyo raashinkii ay isticmaali lahaayeenba waxaana ugu horreyn nooga warbixiyay hoggaanka nabadgelyada gobolka Qoraxay mudane Maxamed Axmed Nuur isagoo sheegay in qorshahani uu koob ka yahay habka la dagaalanka saboolnimada bulshada danyarta ah ay kaga reeysan doonaan dhibaatooyinkii kaga imanayay la gurguritaanka xoolaha si aan uga xaqiijino degmada soo gabagabeynta 42 qoys ee looga sameeyay barnaamijka baabacada halkan looga sameeyay marka waxa weeyaan way dhameystirantaa si loogu talagalay ayay waxa weeyaan degmada uga soo baxday deeleelada saas darteed baan u leeyahay asla xaqiijino maadaama rabno in aan isdul taagno halabuurka xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya geesta kale waxa iyaguna dhankooda ka hadlay gudoomiyaha degmada Shilaabo mudane Cabdinaasir Maxamed Cabdi iyo madaxa xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee degmada Shilaabo Marwo Zainab Cabdi Xuseen iyagoo sheegay in nidaamkani uu yahay nidaam lagama maarmaan ah bulshada xoolo dhaqatada ah ee deegaanka isla markaana tilmaamay in qorshahani uu si fiican uga hirgalay degmada Shilaabo ayna diyaar yihiin guryihii dejinta goobihii naaxinta xoolaha raashinkii xoolihii iyo dhammaanba agabyadii loogu talagalay degmadu waxay lahayd 42 qoys dib u dejinta 42 qoys ee degmada ayaa maanta halkan ku wareejinayna qorshaha ay ugu talagashay xukuumadda oo ah inay loo diyaariyo maacuuntoodii loo diyaariyo cuntadoodii 6 bilood loo diyaariyo qoys kasta 25 neef oo ariya 5 lo' xoolihii iyo guri ayaa halkan maanta dhamaantood ku wareejinayna annagoo wax saad aragtaan ay tahay tan maacuuntii tahay oo tan raashinkii ay tahay xoolihiina sidoo kale iyo ii sheeg feeding loodyadii iyo guryihiina aan hortaaganahay marka waxaan halkan maanta ku wareejinaa dadkii loogu talagalay ee ka faa'iideystayaasha waxaan halkan u nimid maanta dib u dejintii qabal hoosaadka dawacaale aan ka wadnay 42 qoys oo ku wareejinaynay maacuuntoodii alaabtoodii iyo raashinkii iyo dhulbeereedkii oo beeran xoolihii dhammaan wixii agabkii oo dhameystiran yaan halkan ku wareejinaynay waana qabal hoosaadka dawacaale
ugu dambeynna waxaa si farxadii ay ku dheehan tahay uga hadlay bulshadii danyarta ahayd ee lagu wareejiyey guryaha xoolaha iyo gebi ahaanba agabyada kala duwan ee ay habkan casriga ah ugu maarayn lahaayeen xoolahooda iyo naftoodaba waana kuwan iyagoo ina tusaya hantidan saaka lagu wareejiyey waxyaabaha ay ka kooban yihiin islamarkaana ballan qaaday inay sidii loogu talagalay ay ugu nacfiyi doonaan. waxaan soo dhaweynaynaa dib u dejinta ka socota degmada Shiraabo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa waxa maanta lagu wareejiyey qoysaskii dib u dejinta hoyga ay lahaayeen oo guri ah 25 neef oo ari ah 5 lo ah iyo waxa la wixii maacuun weel sida kale cuntadii raashinkii lagu wareejiyey aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hadaan odayaashii bulshada dawacaale hadaan nahay waxaan soo dhaweynaynaa waana taageersanahay waana ku mahadsanaa dawladda waxa weeyaan waxaan ku mahadinaynaa sida sharafta leh ee dawladdu ma garanaysaa wax loogu qabatay sida ma garanaysaa deeba ku dibajinta ay u sameysay dadkiina waa lagu wareejiyey si sharaf leh loogu wareejiyey si waxa loogu wareejiyey maxaan ku dhahay qurux badan baa loogu wareejiyey mashruuca horumarinta bulshada reer guraaga ah ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka hirgeliyay qabalaha qabow ee degmada Raaso ee gobolka Afdheer Harabiyood taas oo ay uga faa'iideysanayaan bulshadu kaydsiga biyaha roobka warbixin umurtaasi ku saabsan waxa inoo faahfaahinaya wariye Maxamed Cumar Ceelaabe. degmada Raaso waxay ka mid tahay degmooyinka gobolkaas Afdheer haddaba degmada Raaso ay ka socdaan horumarka qaybihiisa kala duwan ayaa sidoo kale qabalaha qoobow ee ka tirsan degmadaas Raaso waxaa laga hirgeliyay har ballaaran si roobashan guga ay bulshada ku dhaqan qabalahaasi qabow ee degmada Raaso ay uga faa'iideystaan haddaba hartan oo laga hirgeliyay mashruuca BCDB ayaa qayb ka ah dadaalada kala duwan ee xukuumaddu ay ku doonayso sidii kor loogu qaadi lahaa adeegyada kala duwan la gaarsiinayo bulshada isla markaana ay lagu jiro waqti xaadirkan xilli roobaadkii ayaa guud ahaanba waxaa deegaanka ka curtay roobashii guga si haddaba dhibicda roobka ay bulshada uga faa'iideystaan ayaa tallaabooyinkan ay qayb ka yihiin mid kor loogu qaadayo nolosha bulshada waa kan isuduwaha mashruucan ama coordinatorka mashruucan BCDB ee degmada Raaso mudane Axmed Shariif Cabdi oo ka warbixinaya hartan laga hirgeliyay qabalahaasi qoobow halkan aan taaganahay waxa weeyaan war aan ka qodnay qabalaha qoobow ee degmada Raaso maxaan ku dhahdaa mitir kuubkeeduna waa 10,500 mitir kuubig waxa weeyaan waa sanad miisaaniyeedkii 2010 maxaan ku dhahdaa mashaariicii kamidka ha weeyaan maadaama ay tahay xilli roobaad wadarkaysan wartii hadda biyo fiican ayaa ku jira shacabka ku dhaqan qabalaha qoobow ka tirsan degmada Raaso oo dhankooda bogaadinaya hartan loo sameeyay maray dareenkooda cabireen waxa yiraahdeen waxaan ka hadlayaa wartan oo naloo qoday 2010kii codsiganagana lagu qoday iyo baahida bulshada mashruuca BCDB ay noo qoday buqcada aan ka qodnayna codsiganaga lagu hirgeliyo lagu qoday baahida aan u qabnayna ay sida ahayd si fiican baan uga faa'iideysanaynaa uguna mahadcelinaynaa dawladda isku soo waduba tallaabooyinkan ayaa qayb ka mid lagu doonayo sidii dhibicda roobka looga faa'iideyn lahaa bulshada qaybna ka ajooyinka ugu waaweyn oo yaala xukuumadda deegaanka bulshada beeralayda ah ee ku dhaqan tuulada jirac leh ee degmada Yoxooba ayaa bogaadiyay habsami uga faa'iideysiga qorshaha baabaco ee laga fuliyay degmada Yoxoob sanadkan 2010 tirsiga taariikhda dalkeena Itoobiya wariyahana gobolka Erar alaaba inooga soo warama wariye Cabdikaafi Axmed Wali ayaa warbixin umurtaasi ku saabsan inoo haya bulshada beeralayda ee ku dhaqan tuulada Jiracle oo ka tirsan degmada Yoxoobo ee gobolka Erar oo ku taala duleedka Toga Daaqate ayaa sheegay inay si habsami leh uga faa'iideysteen qorshaha baabaco ay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya sanadkan 2010 ka hirgelisay degmada Yoxoobo ee gobolka Erar goobtan oo ku taala duleedka Toga Daaqate ayaa waxay maamulka degmada Yoxoobo ee gobolka Erar dejiyeen qoysas gaaraya 80 qoys waasi inta badan la guddoonsiyay guryihii hoyga ahaa agabkoodii xoolaha nool noocyadooda kala duwan 1 hektar oo dhul ah oo loogu talagalay inay uga faa'iideystaan wax soo saarka dalagga beeraha isla markaana loo dhameystiray qalabka falashada beeraha iyo sidoo kale matoorada loogu talagalay inay uga faa'iideystaan biyaha Toga Daaqate oo ahaa mid ayna hadda ka hor marnaba ka faa'iideysan jirin haddaba bulshadan beeralayda ah ee ku nool jiinka Toga Daaqate oo ka tirsan degmada Yoxoobo
ee gobolka Erara ayaa markii ay heleen adeegyadaasi iyo taageerooyin ay la garab istaageen maamulka degmada Yoxoobo ee gobolka Erara ayaa waxay u jihaysteen ka faa'iideysiga kheyraadka dihin ee dalaga beeraha waxayna soo saareen dalaga noocyadiisa kala duwan qorshahan oo ahaa mid ay bulshadu si fudud uga bixi karto saboolnimada ayaa waxay bulshada beeraleyda ah ee ku nool degmada Yoxoobo ee gobolka Erara si mug leh uga mahad celiyeen qorshahan ay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya hirgelisay sanadkan 2010 iyaga oo sheegay inay qorshaha biyabaada beer cilmi iyo caafimaad sidii loogu talagalay uga faa'iideystaan wax beer oo ka jirta wadankan ma jirto maantana aaga cagaaran ee arkaysaan ee barwaaqada ah yaa ku yaala qalabkii beerahan ku qodanaynay waana la siiyay dongorayaashii baana la siiyay xagaaftii baana la siiyay siidkii baana la siiyay gudumihii baana la siiyey gudun quraartii aanu daabash ku qoranaynay baana la siiyey qalab ay beer lahayd oo dhan waana loo dhammaystiray waa 54 beerood hadda halkan waxa ku yaalay 50 iyo 4 beerood aad aragtaan hadda mid aan cagaarayn ma jirto hadduu alla ku roon yahay waa barwaaqan ku jiraa alxamdulillah rabbil caalamiin marka dawladana waan ku mahadinaynaa tacabkiisii wax loo beerinayna wayna tustayo matooradii bay noo keentay tuubooyinkii oo ilaa 1700 ah iyo meel 1200 ah intaas baa beerahan hadda aad aragtaan waraabinayo oo dhinac walba maartay matoorku uu ka yaalaa marka de webigan uu iska kaana aqulqulayo iyo taganu biyihiisu wax faa'iidana ma ka helaynin marka taa dawladanadan waan ugu mahadinaynaa sidii maartay aanu saboolnimadii uga bixi lahayn hadda waan u fahnay hadda maadaama aanu in badan saboolnimo ku soo jirnay alxamdulillah rabbil caalamiin hadda wataagaleydii iyo Suudaan garayskii iyo wax walba markaas hadda uu noo siirsan yahay oo kaas oo dhalaysa beertii qorshahan horumarineed ee baabaca ay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya hirgelisay sanadkan 2010 oo ah mid laga wada guud ahaanba degmooyinka uu ka kooban yahay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ah xeeladaha bulshada deegaanka looga saarayo saboolnimada Cabdikaafi Axmed Wali telefishinka caalamiga ah ee ESTV beeraleyda degmada Yoxoobo ee gobolka Erara mas-uuliyiinta maamulka degmada Qabri Bayax ee gobolka Faafana ayaa sheegay in dhismayaashii guryo wadareedka degmada laga fuliyay sanadkan 2010 tirsiga taariikhda dalkeena Itoobiya ay sidii loogu talagalay uga faa'iideysanayaan qoysaskii loogu talagalay Cabdiqaadir Cali Kaadheeri ayaa warbixin muurtaasi ku saabsan inoo faahfaahinaya sida aan wadaagsannahay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sanadihii u dambeeyay qorshe u qaadatay habka dhismaha guryeynta magaalooyinka si ay magaalooyinka u yeeshaan bilic soo jiita indhaha bini'aadamka haddaba halkaani waa degmada Qabri Bayax oo laga hirgeliyey guryo wadareedyo loo dhisay si casri ah isla markaasna ay xukuumadda ugu talagashay inay ka qayb qaataan bilicda magaalada iyo soo jiidashada indhaha haddaba guryo wadareedyadan oo dhismahoodu ka kooban yahay 9 baloog oo beer 3 qol ah iyo suuliga iyo weliba deydkoo si casri ah loo dhisay ayaa wuxuu ka mid yahay qorshaha guryeynta ee maamul magaalooyinka iyo degmooyinka iyo gobolada deegaanka laga hirgeliyay sanadihii u dambeeyay si ay magaalo walba oo deegaanka ay noqoto mid bilicdeedu ay kor u sareyso waxaana ugu horeyntii lagu warbixiyay gudoomiyaha degmada Qabri Bayax ee gobolka Faafan mudane Isaaq Cabdullaahi isagoona sheegay guryahan inay ugu talagaleen inay ka qayb qaataan dhismaha iyo bilicda magaalada Qabri Bayax isla markaasina bulshada loogu talagalay in looga saaro habka hoylaan waqti xaadirkan ay ka faa'iideysanayaan qoysaskii loogu talagalay guryahani sidoo kale guryahan oo loo dhisay si casri ah kana kooban 9 baloog oo beer 3 qol ah iyo hal suuli iyo weliba deydkoo si casri ah loo dhisay isla markaasina degmada Qabri Bayax ku soo siyaadinaya bilic soo jiidashada indhaha ayaa waxa iyaduna dhinaceeda looga warbixisay madaxa maaliyadda horumarka iyo dhaqaalaha degmadaas Qabri Bayax Marwe Ubax Maxamed sheegtay in guryahani inay ugu hirgalaan sidii loogu talagalay waqti xaadirkan ay yihiin kuwa habkii loogu talagalay looga faa'iideysanayo isla markaasna ay uga faa'iideysanayaan qorshihii loogu talagalay waqti xaadirkan daawadayaal halka wali warkaasi aad kala socotaani waa telefishinka caalamiga ee Soomaalida Itoobiya ee ESTV stuudiyaha xaruntiisa dhexe ee magaalada Jigjiga Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka dalkeena Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo booqashadiisii ugu horeysay ee uu dalka dibadiisa uga baxo ku gaaray dalka Djibouti ayaa kulan la qaatay baarlamaanka dalka Djibouti Ibrahim Cabdi Muuse ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya
ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo booqashadiisii ugu horeysay uu dalka dibaddiisa ugu baxo ku gaaray dalka Djibouti ayaa waxa gagada diyaaradaha dalkaasi Djibouti si diiran ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin kala duwan oo horkacayay madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle intaasi kadibna waxa uu ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya waa Dr. Abiy Ahmed kulan la qaatay baarlamaanka dalkaasi Djibouti isagoo kulankaasi kadibna khudbad ka soo jeediyay madashii kulankaasi sheegayna inuu xiriirka labada wadan ee Itoobiya iyo Djibouti tusaale fiican u yahay wadamada kale ee Afrika. sida aad wada ogsoon tihiinba xiriirka yagan taariikhiga ahi ee annaga iyo Djibouti naga dhaxeeya ma aha mid urur goboleedka IGAD oo kaliya tusaale u ah laakiin waa mid wadamada Afrika oo dhan tusaale u ah maxaa yeelay xiriirka yagani waa mid ka duwan kuwa kale oo dhan sababta arrintaasi keentayna waa shacabka labada wadan oo isdhexgalkoodu mideeyay annaguna waxa aanu ku dadaali doonaa sida aanu u sii xoojin lahayn isku xidhnaanshaha shacabka labada wadan iyo waliba kobcinta xiriirka ganacsi ee ka dhaxeeya labada wadan sidoo kale waxa uu sheegay Dr. Abiy Ahmed waa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya inay labada wadan si wada jir uga shaqayn doonaan hawlaha amniga. We have such a wonderful discussion with His Excellency Mr. President. madaxweynaha dalka mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxa aanu wada yeelanay kulamo muhiim ah waxaanu ka wada xaajoonay waxyaabo ahmiyad weyn ugu fadhiya horumarka labada dal waxa kale oo aanu isla qaadanay in uu xanuunka dalka Djibouti yahay mid annagana damqaya isla markaana xanuunka iyagu uu yahay mid iyaga damqaya sida darteedna loo baahan yahay in la isku tiirsanaado oo meel looga soo wada jeedsado wax kasta oo wax u dhimaya qadiyada labada wadan sidoo kale waxa aanu isla qaadanay madaxweynaha in aanu si wada uga wada hawlgalno talaabooyinka lagu xalinayo guud ahaanba amniga. haddaba ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa intii ku sugnaa gudaha wadanka Djibouti waxa uu booqasho hawleed ku soo maray mid ka mid ah dekedaha dalka Djibouti oo lagu magacaabo Toorale isla markaana lagu dhisay lacag dhan $600 milyan. guud ahaanba daawadayaal waxaanu intaasi ku soo afmeeraynaa warar waxayna soo gaadhay oo aad ka daawanayseen telefishinka caalamiga ee Soomaalida ee Itoobiya ee ESTV stuudiyaha xaruntiisa dhexe ee magaalada Jigjiga anigoo Cabdirasaaq Ibraahim Kilaasa ayaa daawadayaal idin waramayay aniga akhyaartii kale ee sida heerka sare ah igala qayb qaadatay xilli tabinteena wareedba idinkoo diyaar garoobaya qaybaha kale oo TV-gu idinku talagalay waxaanu idinku dhaafaynaa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.